السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابي ماشي دقدان سام وشيف برارو soo dhawaada aan leeyahay maanta waxaan wadaa alaab qaboojisaa la dhahaa alaabtan magacaasaan ula baxay aniga rabadaan karim baa idin leeyahay alaabtan aad ayay u macaan tahay haddaad sooman tahay inaad ku afurtid waa wax adiga dantaada ku jirto kaaliska arag qabow alaabtan waa labaniyad ama kastar hadba sidaa u taqaanid qare iyo moos baan ku darsanay iyo sabiib iyo caano baan ku samaysanay insha allah resebtigeedana aad ayuu u fudud yahay ani waxyaalaha adag dhan iga ilaali resebtiyada fudud baan jeclahay inaan sameeyo ma fahanteen alaabtan aad ayay u macaan tahay xalwad camal bay u go-aysaa alaabtan haddaad sooman tahay inaad ku afurtid waa muhiim baan ku leeyahay haddaa awoodid aad heli kartid aad ayay u macaan tahay aad ayay u qabowdahay markaa cunaysid waad ku raaxaysanaysaa ma fahantay halkaa waxaa noo yaallo waxaas waxa weeye labaniyad ama kastar hadba sidaa u taqaaneed sidoo kale sokor baa noo yaallo koob haafkiisa wax yar oo hayl shiidan ah halkaas waxaa noo yaallo waa sabiib caano niidow baan soo qasanaa adiga caanaha rabtaa isticmaali kartaa waxaas waa vinto waaye qare fruitka isticmaalayna waa qare iyo moos ama xabxab saa u taqaanid alaabtan aad ayay u macaan tahay kaale iska arag filinjeerka gashanaysaa hal saac bay kugu jiraysaa macaan qabow labaniyadaan isticmaalaynaa annaga waa 4 qaado oo buuxbuuxaan isticmaalaynaa caanaha ku jira garaafahaas waa wada isticmaali doonaa insha allah waa 2 koob iyo bar weeye caanaha sokortana koob haafkiis waaye sokorta kumaanaan badsan maadaama fiintadu ay seeka tahay caanaha wax yar oo qandac ah aan kasoo dhiganay si ay noogu fududaato inaan u qasanno labaniyada caana qabow waan ku qasin haddii kale burbur bay kaa yeelanaysaa caanaha wax yar oo qandac oo fardiiris maa la dhahaa fardiiris waa calaa kulli xaal labaniyada saas u walaaqo si fiican burburka ka ilaali markay liisho kuu noqoto insha allah markaa unbaa isticmaali kartaa qaadada si fiican ugu walaaqo waxaan sameynay digsigaan dabka soo saaranay caanaha ku shubanay caanaha ilaa uu qandac kaan uu kuu noqdo ha isticmaalin inaa labaniyada ku dartid hadda sokortii iyo sabiibkii iyo haylkii baan ku darsanaynaa haylku si fiican ugu karsamayaa sokorta way milmaysaa sabiibkuna wuu sii jilcayaa labaniyada wax badan ma qaadato ayada dhan 1 2 3 waaye ma fahanteen si fiican u walaaq sokortii iyo wixii oo dhan markay si fiican isku dhex gasho hal mar sug markii wax yar uu xaf soo dhaho markaas labaniyada isticmaal mideeda kale ha ka dul tegin waa inaad walaaqdaa dabkaaguna ha hooseeyo semberi dabka hoosaa wax karaya ma fahantay dabka hadduu fast ka dhigtid shaygu wuu kaa gubanayaa cunaduna way kaa khasaaraysaa mar walba waan dhahaa biyo caanihi xoogaa way noo soo qandaceen haddaan ku darsanay labaniyadii walaaqa ha ka dul tegin ayada dhanba 3 daqiiqa 4 daqiiqa ma kugu qaadanayso siisa iskaga kaa dhiginin anaga labaniyadeeduna way adag tahay 4 qaadaan soo isticmaalnay waa ujeedaan ma jilicsana labaniyada sharaabkaa guriga laga jecel yahay laakiin alaabtaan igu qaataan dhahay maanta waa lagu afurayaa saasaan sameynay sabiibkii waa ujeedaa wuu burburtay sabiibka maadaama uu dab maray wuu kacayaa ma fahantay wuuna jilcayaa aad buu jilcayaa saasaan sameynaa annaga 3daas baaquli waa kala weyn yihiin ma fahantay mid 3 qof aa cunayso mid 2 qof aa cunayso midna hal qof ayaa cunayo waa sidaan u qorsheynay weye insha allah afurka maanta weeye alaabtan inaba caadi ma ahan qabow macaan caraf bay isku darsatay filinjeerka gelinay hal saac buu noogu jiray filinjeerka nus saac waad ka dhigan kartaa laakiin annaga hal saac u daynay meesha caanahaana gashanay qarihi baan soo qaadanay qaraha sidoo kale asagana diseen u jarjaranaynaa dee sidaas oo yaa oo mana waaweyno mana yaryara maca lafta waa idinku siinayaan ku dhaha lafta laftirkeeda gooniya inta loo qalajiyaa la cunaa ma fahantay lafta dhib ma keenayso aniga laf inaan ka bixiyo shani dhanba ma isku doonanin ma fahantay sidaa yare afar geeskaan u jarjaranaynaa insha allah mooskana waa jarjaranaynaa alaabtan asxaabay waa hubaal haddaad si fiican u dhamaystiratid koobkaaga shaha usoo qaadatid markaad daawanaysid aad baad uga helaysaa rabadaanta haddii laga baxo casariyo kulli haddii alla idmo aad ayay u macaan tahay waxaan sameynaynaa qariba hadda jarjaranay dushaan ka saarsaaranayna baasha waa adag tahay waa ujeedaa ma degaysa xataa hadhowna sida u go-aysa dee waad arki doontaan insha allah qarihi maca laftiisi jam aan ku sii abaay hadhow wixii dhibaysaa iska saarto ma fahanta aan dadka ku cunayo ku jira caruurta ma ogola inta badan laakiin waa iska soo saaraya sabiib waayaan leeyahay anuu u dhex raacinaya ma fahantay mooskan soo fiiqanay mooskan insha allah diseenkaas u jarjarana diseenka harta u jarjaranaysaa annaga alaabta yare
saddex gees maa la dhahaa ma ogi alaabtaasaa usoo jarjaranay saasaan u sarsaaranayna adi haddaa rabtid finjeerka ku cesho sid u qaboobo dadaa waxay sameeyeen markii la afuray dib baa finjeerka u gashteen hadhow kale cuneen markii afurka laga soo jeestay dadna dadka isla markaas cunaan ku jira ani maba sugininba ma fahanteen asxaabi aad ayaa umahadsantihiin insha allah alaabta saasaa sameynay kaale iska arag dalabaneed iyo maxaa la yidhahdaa moos iyo qare iyo fiinto iyo alaabtan waa annagaa iskale kule cid manugu haysataa aaminsanahay labanida sidaan loo sameeyo annaga carabtana way nala isticmaashaa baan u malaynaya diseenkaan annagaa iskale calaa kulli xaal labanidii fiinto iyo qare waa annagaa caan ku ah waxaa sameynaya fiintadii ba ujeedaa seekadeeda isticmaalna seekale loo isticmaalaa maba lasoo qaso marka labaneed lagu daraayo fiintada ma fahanteen saasaan dusha uga darsanay kaale iska arag alaabtan macaan yaa qofkii sameeyo unbaa ila dareemi doono indhahaana kuu macalina cunada haddaa wax ka taqaanid alaabtan waa qabow kaale iska arag xalwad camal saasaa u dhudhunjinay ma fahanteen waa ujeedaa saas ayaan usoo guranaysaa mid kas cid ilaa hal qofaa cunaya labo qofaa cunay ma fahante waa lasoo mayaha waa sambusa laisku kiisa ma fahante iyo bur saasaan u jarjaranaynaa asxaabay aad ayaad umahadsantihiin insha allah waxaa fahmi weysaan diyaar ayaan idinahay waad soo weydiin kartaan insha allah waxaan rajaynayaa fiidiyoyada dambe baa inoo ballan haddaan caafimaad qabno waana idin ducaynaya insha allah annagoo caafimaad qabno iyo idinkoo caafimaad qabo ayaa inoo ballan alaabtiina waa taasaa macaankeeda kaale iska arag waa sadar muuqda su-aal ka dhan ma fahante yaa bismillah